kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada janalka galka wararka qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah ciidan beeleedyo isku hareereeyay hoyga garaad jaamac garaad cali Somaliland oo war ka soo saartay xaaladda lascaano. mabaadi'da jamhuuriyadda Somaliland waxaa aasaasi iyo buddhig u ah nabad ku wada noolaansho dawladaha ay jaarka yihiin. maxkamad ciidan oo dil ku xukuntay askari nin rayid ah ku dilay 5,000 oo shilin Soomaaliya qarax ka dhacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo iyo diyaarad ku burburtay bartamaha dalka Nepal. qodobadaas iyo qodobo kale oo aad xiiso badan ayaad ku dhageysan doontaan warka galka wararka ka imaanaya magaalada Laascaanood ayaa sheegaya in abniga la adkeeyay halka uu degan yahay garaadka beesha dhulbaxantay ee garaad jaamac garaad cali iyadoo xiisada ay maalmahan ahayd mid degan. dhaqdhaqaaqyo ciidan oo Somaliland ay ku dooreyso inay dib ugu wareegto Laascaanood ayaa laga dareemayaa gudaha magaalada Laascaanood saacadihii la soo dhaafay. dadka deegaanka ayaa waxa ay sheegayaan in ay heleen macluumaad ah in la dili rabo shakhsiyaad uu ka mid yahay garaad jaamac balse taasi ay ka xigaan in iyaga la dilo ka hor inta aan garaadka loo gudbin. xamaasad ayaa ka dhalatay arrintaasi markii uu soo shacbaxay warkaasi xilli garaadka uu waday dadaalo nabadeed oo Laascaanood dib loogu soo celinayo kadib rabshado toddobaadyo ka socday magaalada Laascaanood oo dad ay ku dhinteen. ciidanka Somaliland ayaa isaga baxay xilli habeena isbuuc iyo ka hor markii kacdoon wadayaasha dadka deegaanka Laascaanood ay hubka qaateen iyadoo oo dilalka dadka waxgaradka ah ay ku soo badanayeen muddooyinkii dambe magaaladaasi. Somaliland waxa ay war ka soo saartay xaaladda magaalada Laascaanood. maalmihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Laascaanood ee gobolka Sool gaaray wafdi ka socday xukuumadda Somaliland kuwaasi oo halkaasi u joogay xal helidda rabshadihii muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay gobolkaasi. rabshadahaasi oo ay ku dhinteen dad rayid ah kadib markii ay dadku ka gadoodeen sida ay sheegayaan dilal soo noqnoqday oo magaaladaasi ka dhacay muddooyinkii ugu dambeeyay. wasiirka warfaafinta Somaliland Suleymaan Cali Kore oo warbaahinta la wadaagay war-saxaafadeed ay soo saareen ayaa sheegay in Somaliland ay taageerayso wadahadal nabadeed si loo soo afjaro xiisadda ka taagan magaalada Laascaanood ka dhacay. xukuumaddu iyadoo ku dadaalaysa inaanay shaqaaqadaasi sii socon waxay kulamo istaba jooga la yeelatay bulshada gobolka Sool sida qaybo ka mid ah madax dhaqameedka iyo culimada diinka. guddigii 3 ahaa golayaasha deegaanka ee gobolka Sool sida Laascaanood, Xudun iyo Taleex. dhammaan isuduwayaasha wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ee madaxa bannaan. xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland waxay taageeraysaa baaqi ka soo baxay ee ku wajahnaa adkeynta nabadgelyada iyo wadahadal lagu dhameeyo wixii tabashaa ee jira. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa dil toogasho ah ku xukuntay askari lagu magacaabo Qaasim Ducaale Cabdi oo ka tirsanaa ciidanka ilaalada deegaanka Xamar oo talaadadii la soo dhaafay nin rayid ah ku dilay degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. maxkamadda ayaa ku heshay Qaasim inuu si bareer ah u dilay muwaadin la oran jiray Abuukar Maxamed Nuuraani oo meherad yar ku haystay suuqa Xamarweyne. dad goobjoogayaal ayaa sheegay in marxuumka loo dilay 5,000 oo shilin Soomaali ah oo canshuur ahaan looga rabay. arrintan ayaa dhalisay carab ballaaran oo dadka deegaanka ay ku dalbanayeen in cadaaladda la mariyo askariga sida bareerka ah u dilay Abuukar Nuuraani. waxaana ugu dambeyntii maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukun dil ah ku riday askarigii dilkaasi geystay oo talaadadii lasoo dhaafay dilay ninkaasi muwaadinka ah. qarax bambaano ayaa lala beegsaday kaniisad ku taala bariga dalkaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo. wararka qaar ayaa sheegaya in ugu yaraan 5 qof ay ku dhinteen halka 15 kalena ay ku dhaawacmeen. militariga wadankaasi ayaa ku eedeeyay kooxda fallaagada ee ADF in ay ka dambeeyeen weerarka kuwaasi oo sheegtay sanadkii 2019 inay taabacsan yihiin kooxda la magac baxday dowladda Islaamka. afhayeen u hadlay militariga ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid argagixiso. diyaarad ay saarnaayeen 72 qof ayaa ku burburtay meel u dhow garoon ku yaala bartamaha dalka Nepal waxaana ku dhintay 40 qof sida ay sheegeen mas'uuliyiinta dalkaasi. diyaaradda Jet Airline ayaa ka soo duushay magaalada Kathmandu waxa ayna ku wajahnayd magaalada dalxiiska ee Pokhara. diyaaradda ayaa burburtay xilli ay degaysay isla markaana dab ayaa qabsaday. ciidamada Nepal oo gaaraya 200 oo askari ayaa ka qayb galay howlgalka gurmadka ee ka socda goobta diyaaraddu ay ku burburtay ee webiga Set. muuqaal laga soo duubay goobta ayaa muujinaya qiiq iyo uuro madow ah
oo cirka isku shareertay. warkii aad kala socoteen janalka galka wararka daawadayaal waa naga intaan ku kulmayno warkan lamid waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay janalka noo subscribe garee, haddii aad horey noola joogtayna barnaamijka noo sii share garee. maxadsanid.